قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا bismillaahi raxmaani raxiim ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad miidiya qodobadaad ku daawan doontaan waxa ugu dooroon ciidamo ka amar qaata macalin maxamuud iyo kuwa dawladda oo dagaal ku dhex maray Burceel muushin ka dhanaa ciidamada Kenya oo la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya al-shabaab oo dil dad badan ay ka naxeen u geystay gudoomiye xaafad ka tirsan magaalada Jowhar oo shabaab cadaalad u raadsaday barnaamijyo rabshado wato looga soo horjeeda caleemasaarka Axmed Madoobe oo Garbaharri ka dhacay xafladkii iskuuda isku caleemasaarayaan xidig iyo seeraar oo Kismaayo ka dhacday Xasan Cali Qeyro oo hadal dad badan u riyaaqeen u diray mucaaradka dawladda Jabaan oo ciidamo militari ah geysay goobihii masiibadu ka dhacday iyo dawladda Iiraan oo ku goodisay inay jawaabada ka bixinaysa markab looga gubay biyaha Sacuudiga hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino ku soo dhawaada intii aad maqasheen oo faahfaahsan daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا dagaalamayaasha al-shabaab ayaa meel fagaara ku dilay gudoomiye ka tirsan maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi gudoomiye xaafadda Buurashiikh oo kamid ahaa 4 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle ayaa lagu toogtay fagaara ku yaala deegaanka Fiidow oo ay maamulaan ururka al-shabaab sida la xaqiijiyay gudoomiyaha ayaa tagay deegaanka Fiidow muddo bil ka hor isagoo marqaati fur u ahaa garab kamid ah dad ay u dhaxaysay dacwad oo cadaalad u raadsaday maxkamadda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaankaasi intay socotay dhageysiga dacwadda ayaa la sheegay gudaha maxkamadda ay soo galeen rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo aad u hubaysan kuwaas oo fadhiga maxkamadda ka dhex watay gudoomiyihii Buurashiikh iyagoo garsoorkana ku wargeliyay in ninkan uusan noqon karin marqaati oo ka tirsan yahay maamulka degmada Jowhar saldhigga dadka lagu xiray al-shabaab ka samaysteen deegaanka Fiidow ayuu ku xirnaa wax ka badan 20 maalmood iyadoo ugu dambeyn lagu toogtay meel fagaara ah oo la isku keenay shacabka deegaankaasi si ay u daawadaan inkastoo ay tahay wax la wada og yahay in shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar cadaalad u raadsadaan maxkamadaha al-shabaab ay maamulaan iyagoo aan ku qanacsanayn maxkamadda degmada iyo gobolka ee Jowhar ku yaala haddana waxa ama kaag noqotay arintan waxaana su'aal la iska weydiinaya sida uu gudoomiyaha ugu qancay inuu tago dhul ay maamulaan al-shabaab isagoo xubin ka ah maamulka dawladda ee halkaasi ka shaqeeya wararka ka imaanaya magaalada Garbaharri ee xarunta gobolka Gado ayaa sheegay in maanta magaaladaasi uu ka dhacay barnaamij looga soo horjeedo caleemasaarkii shalay magaalada Kismaayo ee caasimada ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland lagu sameeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland balse doorashadii lagu doortay ay dawladda ka soo horjeesatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dadkan barnaamijka dhigayo iskaga kaliimid xaafadaha ay ka kooban tahay Garbaharri waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan caleemasaarka Axmed Madoobe sidoo kale dadkan ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay wafdigii Kenya ka socday ee ka qayb galay caleemasaarka Axmed Madoobe iyagoo jabiyay amarkii dawladda ee ahaa in diyaaradaha ka imaanaya Nairobi ay soo maraan Muqdisho sidoo kale dibadbaxyadan ayaa ka cabanaya dib ay sheegeen inay ku hayaan ciidamada dalka Kenya aadan Siraad Maxamuud oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gado oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dibadbixii maanta ka dhacay Garbaharri waxay dadka aad uga qeyraysan yihiin wixii ka dhacay Kismaayo in muddo ahna ka socday faragelinta qaawan ama duulaanka qaawan oo maaragtay dawladda Kenya ay ku hayso qarannimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya taas baa waxay keentay inay dadkii banaanbaxaan shucuurtoodana aad u kacsan tahay wax hadda ganacsi ah iyo dukaan oo furan ma jiraan dadku waxay socdaan wadooyinka waaweyn ee magaalada marka waxa la diidan yahayna waa barnaamijkii ka dhacay meesha la yiraahdo Kismaayo iyo duulaan qaawan oo dawladda Kenya ay sameysay oo maxaan ku rahdaa qarannimada Soomaaliya ay weerar ku soo qaaday dhamaan markii ay istirsadeen taaba waxay kaliftay in shacabkii iyo maamulkii iyo dhamaan bulshadii ay saacaan oo go'aankaas laga horyimaado aadan Siraad ayaa dhinaca kale sheegay in maamul ahaan aysan ba aqoonsaneen Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe muhiim nooma ahan muxuu ahaay waayo Axmed sharciyada uu ku yimid oo hadda waa uu isku doortay midaan aqoonsanahay ama guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan xarunta gobolka Gado ee Garbaharri laga aqoonsan yahay maahan go'aanka dawladda ka qaadatay baan anagu dhamaantan ka qabnaa laakiin waxaan diidanahay waxay tahay
in qarannimadii iyo karaamadii iyo sharaftii Soomaaliyeed lagu soo duulo gudoomiyihii baarlamaanka Kenya oo shalay mooshinka horgeeyay muxuu ahaayay baarlamaanka Kenya oranayay waa in badda Soomaaliya lagu wajaho xaalad ciidan uu shalay maaragtay waxaan arkay uu ka sameeyay Kismaayo haddana ay u sabcinayaan ay raalli ka yihiin ay fadhiyaan mar labaadna ay rajo ka qabaan maaragtay inay sii ahaadaan ay madaxweyne raadiyaan ee hoggaanka dalka Soomaaliyeed u sareeyay raadiyaan. Banaanbaxyadan ayaa ku soo aadayay xilli uu sii xumaanaya khilaafka u dhaxeeyay Jubbaland iyo dawladda kadib doorasho magaaladaasi ka dhacday oo Axmed Madoobe ku soo baxay dawladdana taa ay ka biyadiiday iyadoo sheegtay in doorashada aan loo marin wado sharci ah. munaasabada caleemasaarka Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig oo sheegtay inay yihiin madaxweynayaasha maamulka Jubbaland ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Madasha munaasabada ayaa waxaa ku sugan xubnaha guddiga isbedel doonka ah inkastoo aysan ku sugnayn halka ay ka socoto munaasabada marti sharaf ka soo qayb gashay ama lagu casuumay intaba. Kaafiya Cabdi Faarax oo gudoomiye ku-xigeenka garabka isbedel doonka oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay inay munaasabada lagu caleemasaarayo madaxweynayaasha ay si wanaagsan uga qabsantay Kismaayo. waxaa sii adkaanaya xaaladda siyaasadeed ee ka jirta magaalada Kismaayo iyadoona caleemasaarka uu daba socdo caleemasaar shalay Kismaayo ka dhacay kaasoo lagu caleemasaaray Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. dawladda Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay inay aqoonsaneen dhammaan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo. ciidamo ka amar qaata hoggaanka sare ee Ahlusunna wal Jameeca ayaa askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee dhawaan la qarameeyay ayaa barqanimadii maanta isku rasaasayay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Israsaasaynta ayaa timid kadib markii uu askari ka tirsan ciidamada dawladda oo ka tagay Dhuusamareeb uu maanta gaaray Guraceel uu muddo ka maqnaa. waxaana waran helnay sheegayaan in ciidamada Ahlusunna ay qabashada askarigaas uga aargudanayeen 2 nin oo maalmo ka hor looga xiray magaalada Balanbal ee gobolka Galgaduud waxayna raggaas deegaano hoostaga Balanbal ka wadeen qorista ciidamo taabacsan hoggaanka Ahlusunna. askariga ka yimid Dhuusamareeb oo watay gaari ayaa israsaaseen muddo socotay waxay isaga iyo ciidamadii Ahlusunna ku dhex martay bartamaha magaalada Guraceel walow aan wali la soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay israsaaseyntaas. muddo kooban kadib ciidamada Ahlusunna waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan askarigaas waxayna ku xireen saldhigga weyn ee Guraceel. ciidamo kale oo ka amar qaata dawladda federaalka oo ka sugan isla magaalada Guraceel ayaa waxaa la sheegay in ka dhiidhiyeen xariga ay ciidamada Ahlusunna u geysteen askarigaas isla markaana xiisad ka dhalatay arrintaasi ay ka taagan tahay Guraceel gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa lagu dilay qarax miino oo la kacday gaari ay saarnaayeen meel ku dhow magaalada Gaarisa ee dalka Kenya. ciidamadan oo howlgal ku jira ayaa tagay xiro ku taal Xarxar waxaana ay ilaalo ka hayeen xadka kala qeybiya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. sargaal u hadlay ciidamada booliska dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamo iskugu jira military, booliis iyo qaar kaleba ay ka howlgalayeen deegaanada ku dhow xadka kala qeybiya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkan miinada ah ayna ku dileen 10 askari waxaana sidoo kale warkan baahiyay warbaahinta dalka Kenya. bayaan kale oo ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in dhowr sargaal ay ka mid ahaayeen dadka dhintay inkastoo aan la shaacin tiro rasmi ah. qaraxan oo ahaa mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee ciidamada Kenya ka soo gaaray gudaha dalkooda halkaasi oo kooxda Al-Shabaab inta badan weeraradeeda ka fuliso gobolka Waqooyi Bari iyo kan xeebta. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo khudbad ka jeediyay munaasabad lagu xusayay maalinta calanka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay midnimada. ugu horreyn Kheyre ayaa ugu baaqay qof kasta oo Soomaali ah inuu u istaago ilaalinta qaranka, madax bannaanida iyo midnimada. sidoo kale waxa uu sheegay Kheyre in muxaafad iyo mucaarad looga baahan yahay inay isku bahaystaan ilaalinta xuduudaha badda, hawada iyo dhulka Soomaaliyeed. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan uu taagan yahay muran salka ku haya biyaha Soomaaliya oo dawladda federaalka kala dhaxeeya Kenya. dacwadda badda oo muddo soo jiitamaysay ayaa ka furan maxkamadda cadaaladda ee dunida ICJ iyadoo rajo wanaagsan laga muujiyay inay ku guuleyso doonto Soomaaliya. sidoo kale hadalka Kheyre ayaa ku soo aadaya iyadoo markii labaad dawladda Kenya diyaarad ka timid ay jabisay xayiraad saarneed magaalada Kismaayo shaqaynay ugu dambeysay.
xildhibaan maxamed cumar dalaxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaano uu ka mid yahay ay wadaan mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya iyadoo dhawaan la furay kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay xildhibaan dalaxa in fadhiyadooda ugu horeeya ay baarlamaanka horgeyn doonaan mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah xukuumadda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka dawladda Kenya u fadhiya Soomaaliya Luxembourg wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi oo safiirka kula kulmay xarunta wasaaradda ayaa u dhiibay qoraal ay Soomaaliya kaga caawinaysay xadgudubka diyaarad laga leeyahay Kenya ku xadgudubtay hawada Soomaaliya 5 Oktoobar 2019 diyaaradaas oo cagdhigatay garoonka diyaaradaha ay Kismaayo iyadoo aan ogolaasho ka haysan dawladda Soomaaliya wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee Aadan Barre Ducaale ayaa shalay ka degay garoonka diyaaradaha Kismaayo halkaas uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe Aadan Barre Ducaale ayaa waxa safarkiisa ku weeliyay xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya kuwaas oo laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari NFD wafdi aan ka socday Kenya ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku yimid diyaarad yar oo nooca Feker ah waxaana ay toos uga yimaadeen magaalada Nairobi dalka Kenya taas oo mar kale noqonaysa in Kenya jabisay xayiraadii dawladda Soomaaliya ay saartay Kismaayo xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa xumaa waayihii dambe iyadoo khilaafka ugu weyn uu ka taagan yahay kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaas oo dacwadiisa ay Soomaaliya geysay maxkamadda ICJ walow ay 5 sano kadib wali Kenya ku dadaalayso in kiiskaas lagu xalliyo wada hadal dawladda Japan ayaa ciidan military geysay goobihii musiibadu ka dhacday dawladda Japan ayaa 10,000 oo askari shaqaalaha gurmadka degdega ah geysay meelaha sida daran ugu dhufatay duufaan ay ku dhinteen 18 qof duufaantan ayaa daadad dhigtay koonfurta magaalada Tokyo waxayna u jihaysatay waqooyiga iyadoo biyo badan wadata sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda Japan ka tirsan 13 qof ayaa la laayahay waxaana socda dadaalo lagu baadigoobiyo biyo ayaa go'doomiyay saldhigga ugu caansan ee tareenada Japan diyaaradaha qomaatiga u kaca ayaana samata bixinaya dadka biyuhu guryahooda u galeen ciidan military ah oo tiradoodu gaaraysa 27,000 iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa la geeyay goobaha ay duufaantu saameynta adag ku reebtay waxayna dadku u daadgureynayaan xarumaha gaarka ah ugu dambeyntii dawladda Iran ayaa ku goodisay inay jawaab adag ka bixinayso markab looga gubay biyaha Sacuudiga afayeen u hadlay dawladda Iran ayaa sheegay weerar fulinnimada ah ay lagu qaaday markab saliida qaado oo ay Tehran leedahay loo adeegsaday gantaal Iran ay jawaab kulun ka bixi doonto wakaaladda wararka Iran oo soo xigatay afayeenka xukuumadda Tehran Ali Rabiic ayaa sheegay markabka weerarka loo geystay ee Sabtidii inuu marayay biyaha dalka Sacuudi Carabiya wixii ka dambeeyay bishii May sanadkan waxa gobolka ka dhacay weeraro loo geysanayay maraakiibta saliida qaada oo ay leeyihiin wadamo kala duwan Iran waxa kale oo ay sheegtay inay baaritaanka ay ku wado weerarkaasi uu gabagaba marayo natiijada ka soo baxdana iyadoo ka duulaysa cidii weerarkaasi ka dambeysay ay jawaab waafi ah si doonto sarkaal saro ka tirsan laamaha amniga Iran waxa uu sheegay inay hayaan muuqaal muujinaya weerarkaasi sida uu dhacayadoo muuqaalka lagu arkay laba gantaal oo markabka la beegsaday daawadayaal waa naga inta warkeed kala socoteen Galcad Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino Galcad Media Galcad Media Galcad Media Galcad Media